Augsburg waa magaalada saddexaad ee ugu weyn gobolkan Bayern ahna mid ka mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan dalkan. Magaaladan waxaa ku nool Soomaali waxaana ka dhisan jaaliyad matasha Soomaalida magaaladaas ku nool. Jaaliyadaas maalintii Sabtida ahayd oo ku beegneed 13 bisha Sebtembar 2025 waxay soo qaban qaabiyeen kulan ciyaareed kubadda cagta ah oo ay ugu tala gashay in caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaas ku dhashay ama ku barbaaray isku bartaan isku dhexgalaan jawi farxadeed oo ku dhisan madadaalo iyo maanfurnaan ahna ay ku qaybsadaan. waxaana cajiib ah sida ay ugu dhakraaricinayeen qabanqaabiyeyaasha kulanka oo ugu horeeyay Kamaal. bal Kamaal ha nooga warramo kulanka iyo guud ahaan qabanqaabada dhanka jaaliyadda ah ee kulankan. maanta sida aragtaan waxaan haysanaa garoonkan aan ku ciyaarayno kubaddaas oo loo qabtay dhalinyaro ka tirsan magaalada Augsburg soo korayso soo kabciso oo daada u dhaxaysa 15 ilaa 12 alxamdulillah si fiican bay noogu socotaa saa u jeedaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka socdaan waxaan rajaynaynaa kulley sidaan si ka fiicanna inay noogu socon doonto kulamo badan baa qabanay kulamadaas oo ah ku guulaysanay laakiin kaamiraysan dhaxtay laakiin maanta waxaan jeclaysanay inaan soo bandhigno waxa aan qabanayno sida bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto ee ugu qayb qaadato mise ugu farxado dad macnaha dhalinyaro 15 jira kubad ciyaarayo macnaha wax aad loogu farxo isdhexgal bulsho sameeynaayo isbaranayo kulleyna waxyaabo badan oo soo socdana waa jiri doona insha Allah kulley waa waxyaabo noo qorshaysan mustaqbalka soo socdo noo dhici doona insha Allah haddii la gaarsiiyo maanta waxaan ku faraxsanahay inaan dhalintaas u qabano kubaddaas quruxda badan ee soo faraxsan yihiin oo qoslayaan isku dhaxgaleen alxamdulillah kulley waxaan rajaynaynaa sanad soo socdo ilaana gaarsiiyo meeshaan meel ka fiican inaan gaarno. sidoo kale xoghaye Mustafa Nuur Cismaan ayaa isaguna cabiraya dareenkiisa ku aadan kulanka maanta. sida u jeedaanba maanta waxaanu ka soo qayb galnay xaflad u qabanaynay ama activity aan siinaynay dhalinyaradeenna caruurta meeshaan ku dhashay iyo kuwa meeshaan ku barbaaray taasna waxa soo qaban qaabisay isla jaaliyadda tan waa isbarasho waa qayb ka mid ah inaanu caruurta u samayno mataqaanaa inay isbartaaniin dhaqankoodii afkoodii hooyo ku wada hadlaaniin taasuna anaga fursad bay noo tahay ka jaaliyad ahaan iyo jaaliyadda magaalada Augsburg in caruurta isbartaan afkooda hooyana ku wada hadlaan waa yadadiilada jaaliyad kasta oo ka dhisan dalkan ama dal waliba oo aan dalkooda hooyo ahayn. xil ayaana ka saaran jaaliyad waliba oo Soomaaliyeed meeshay doonto dunida ha ka dhisnaatee inay caruurta juhdi iyo dadaal adag geliso si ay u bartaan afka hooyo dhaqanka hidaha iyo diintaba. in yar ay idin la wadaago qayb ka mid ah ciyaartii kubadda cagta oo ay dhalinyaradu ciyaarayeen. Kastaba ka badiyo
waxaa isaguna goobjoog ahaa oo ka soo qayb galay kulanka ay jaaliyadda soo qaban qaabisay gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Augsburg bal isagana aan dhageysano. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa sayyidina Muhammadin wa calaa aalihi wa sahbihi wa sallim. Magacaygu waa Aadan Deeriye. Maanta waxaan isugu nimid munaasabad loo qabtay dhalinyarada Augsburg iyo deegaanada u dhow. Anigu waxaan ka socdaa waxaan ka mid ahay xubnaha jaaliyadda xubin ka mid ah maantana baraarujinta iyo maaragtay horumarinta iyo isbarashada dhalinyarada xafladaas koobkaas loo qabtay baan isugu nimid. ugu dambeynna Sheekh Saciid Xaashi oo ah maamulaha masjidka iyo macadka jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Augsburg ayaa isagana dareenkiisa nala wadaagay. waxaa farxad noo ah maanta inaan bulshadii Augsburg khaasatan dhalintii halkan isugu yimaadeen iyadoo lagu dhiirigelinayo loona sameeynaya isdhexgal iyo waxay ku farxaan insha Allahul Kariim xillina dugsiga iyo madrasadii quraanka ay baranayaan xillina iyaga kulmaya oo isbaranaya oo ciyaaraya arintaas waa arin wanaagsan oo aan soo dhaweynayno runtii jaaliyadana waxaan uga mahad celinaynaa inay tahay jaaliyadii ugu horeysay oo barnaamijkan waqti gelisay waa jiraan barnaamij noocan oo kala oo horay loo qabtay laakiin sidaan xiisaha gaarka leh waa markii noogu horeysay insha Allah waxaan leenahay halkaas kaga sii wada waa arin wanaagsan oo arintii bulshada lagu jeclaysiinayo Soomaalinimada dhaqankooda diintooda masaajidkooda iyo in isku xirmaan marka arintaas insha Allah waa bogaadinayna soo dhawaada dhamaantiin mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay waxaan ka bareenaa inuu ubadka noo xifdiyo diinteena noo xifdiyo aakhiradeena noo xifdiyo waxaan jecelnahay aakhiriya adduunba ilaahayna siiyo aamiin aad bay u mahadsan yihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Augsburg dadaalka ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan gogol xaarka ay u sameynayaan carruurta Soomaaliyeed si ay iyaguna u dhameystiraan mustaqbalka si dib la'aan ah halganka ay maanta jaaliyadda Soomaaliyeed ee Augsburg wado annagana si guud waxaan waqtigeena iyo waxtarkeennaba ku kabeynaa cid waliba oo waqtigeeda qayb ka mid ah bulshadeeda u hurta haddii aad tahay xubin ka tirsan jaaliyad ama urur Soomaaliyeed ama aad xitaa tahay qof shakhsi ah oo jecel inuu bulshadiisa wax uun ku kordhiyo waad nala soo xiriiri kartaa waad nala wadaagi kartaa aragtidaada waadna nagu biirin kartaa wax waliba oo aad isleedahay bulshadaada waxtar bay u leeyihiin waan ku soo dhaweynaynaa idinkana waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan iyo waliba faafintiisa nabadgelyo.